hadba qofkii gacanta ku haya jasiiradda Soqadra ee dhacda ilinka laga galo gacanka cadmeed waxa uu gacanta ku hayaa furaha toddobada badood ee ugu waaweyn dunida waana arinta uu maanka ku hayo madaxweyne Putin oo xasuusan saldhiggii military ee uu Ruushku ku lahaa Soqadra xilligii Midowgii Sofiyeed taas oo uu baneeyay kadib burburkiisii iyo midnimadii Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen sanadkii 1990kii maanta dhammaan macaahidda istiraatiijiyadda militariga iyo siyaasadda ayaa aaminsan in Ruushka uu ka fakarayo ku laabashada saldhiggiisa military ee Yemen inkasta oo jasiiradda Soqadra ay hadda gacanta ugu jirto dawladda taagta daran ee Yemen oo uu baritaaro Mareykanka haddana waxa iska cad in Ruushka uusan beerdarayn doonin fursad kasta oo uu ku gaari karo xeebaha istiraatiijiga ah ee Yemen oo hadda isku bedelay aagga ugu muhiimsan badda cas muhiimadda xeebaha Yemen ayaa banaanka timid kadib markii Xuutiyiinta Yemen ay weeraro aan kala joogsi lahayn ku qaadeen maraakiibta Israa'iil iyo kuwa reer galbeedka ee adeegsanaya badda cas marinka Bab el-Mandab iyo gacanka cadmeed si ay uga hortagaan saadka loo wado Israa'iil markii Mareykanka iyo xulafadiisuba ay dhankoodii bilaabeen duqeymaha ka dhanka ah Xuutiyiinta si loo wiiqo awoodda kooxda waxa Ruushka uu cambaareeyay weerarada iyada oo haatan uu soo badanayo damaca Moscow ee badda cas xiriirka Yemen iyo Ruushka waxa uu soo bilowday sanadkii 1928kii markaas oo Yemen waa xilligii boqortooyadii Mutawakkil ay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee Midowgii Sofiyeed uu xiriir kala sameeyay bariga dhexe xiriirka ayaa soo maray boqortooyada Sacuudi Carabiya halkaas oo wakiilka Imaam Yaxya Xamid al-Din ee magaalada Jidda uu fariin u diray ergeygii Ruushka kaas oo ku salaysnaa heshiis ganacsi oo u dhaxeeya labada dal laakiin xiriirka diblomaasiyadeed ayaa si rasmi ah u bilowday sanadkii 1955kii xiriirka u dhaxeeya Ruushka iyo Yemen waxa uu ku salaysnaa heshiis saaxiibtinimo iyo iskaashiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Shacabka Yemen ee sanadkii 1979kii waa xukuumaddii ka dhisnayd dhanka koonfurta iyo Jamhuuriyadda Carabta Yemen ee sanadkii 1984kii oo iyana ahayd xukuumad ka dhisan waqooyiga koonfurta Yemen waxa ka talinayay xilligaas nidaam hanti wadaag ah oo u dhow taliskii Moscow iyadoo ay taasi jirto taageerada Midowgii Sofiyeed ayaa ahayd mid aad u yar marka loo eego wadamada kale Moscow ma aysan raadinin guusha shuuciyadda ee koonfurta Yemen laakiin waxa ay aad u xiiseynaysay isticmaalka ciidan ee badda iyo hawada ee taliska cadan raadadka ugu waaweyn ee Sofiyeedku uu kaga tagay Yemen waxa kamid ah saldhigga cirka ee Al-Anad oo ah saldhigga military ee ugu weyn Yemen kaas oo ku yaala koonfurta gobolka Lahj oo 60 kiiloomitir jihada waqooyi ka xiga magaalada Cadan waxa saldhiggan uu goobjoog ka ahaa dagaaladii ugu adkaa oo ka dhacay Yemen sanadkii 1994kii sidoo kale wixii dhacay 11kii Sebtembar kadib waxa ay noqotay xarun weyn oo laga maamulo dagaalka ka dhanka ah Al-Qaacida ee Yemen sanadkii 2015kii saldhigga ayaa ka mid noqday meelihii ugu adkaa ee ay ka dhaceen dagaaladii sokeeye ciidamada qaranka ee daacadda oo ah madaxweyne Cabdirabbi Mansuur Haadi ayaa waxa ay awood u yeesheen iyaga oo taageero dhul cir iyo badba ka helaya ciidanka Sacuudiga iyo ciidanka Imaaraadka Carabta in ay dib ula wareegaan gacan ku haynta saldhigga 3 Agoosto 2015 dhamaadkii dagaalkii qaboobaa Moscow ayaa faaruujisay saldhigyadii ay ku lahayd koonfurta Yemen waxayna lumisay saameynta juqraafiyadeed ee gobolka oo uu la wareegay Mareykanka arrimahan hordhaca ah ee bariga dhexe ayaa mar kale muujinaya soo ifbaxa in Ruushku uu ku soo laabtay gobolka iyo hoos u dhac ku yimid saameynta Mareykanka mana ahan oo kaliya rabitaanka Ruushka ee ku saabsan in uu ka hortago reer galbeedka laakiin waxa uu doonayaa soo celinta awoodiisa ciidan iyo juqraafiyadeed ee badda cas iyo gacanka cadmeed rabitaanka Ruushka ee ku noqoshada Yemen waxa uu soo shacbaxay sanadkii 2009kii markii sarkaal ka tirsanaa militariga Ruushka uu ka hadlay rabitaanka wadankiisii ee ah in uu saldhig military ka samaysto meel u dhow marinka istiraatiijiga ah ee Bab el-Mandab kaas oo isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed 18% shidaalka khaliijka ayaa soo mara marinka
goobaha go'aan qaadashada ruushka iyo xarumaha cilmi baaristu waxa ay inta badan tixraacaan aas-aaska saldhiggan 5 sano ee la soo dhaafay. Yemen ayaa waxa ka dhacayay qalalaase isdaba joog ah tan iyo sanadkii 2011 markii kacdoon shacbi uu afgambiyay madaxweyne Cali Cabdalla Saalax oo dalkaasi xukumayay muddo 33 sano ah. rabshadahaasi waxa ay noqdeen kuwo isu bedelay loolan xukunka ah xuutiyiinta oo la wareegay gacan ku haynta Sanca bishii Sebtembar 2014 waxaana durba bilowday faragelin uu Sacuudigu ku sameeyay xaaladda isbahaysiga Sacuudiga oo Mareykanku uu taageerayo. bishii Maaj 2015 ayaa waxa ay bilaabeen duqeymo ka dhan ah xuutiga. dagaalkaasina waxa uu keenay dhibaatadii ugu weyneed ee bani aadamnimo ee adduunka sida ay sheegtay qaramada midoobay iyada oo dagaalkan uu ku riixay inta badan dadka dalkaasi ku dhawaad 30 milyan oo ruux in ay cagaha la galaan abaar iyo macluul. iyada oo dagaalkaas laga duulayo Moscow waxa ay si taxadar leh ula socotay xaaladda Yemen waxayna ka fogaatay in dhammaan dhinacyada ay la safato. isla xilligaasna waxa ay si adag u garab istaagtay nidaamka Bashar al-Assad ee Suuriya. walwalka juqraafiyadeed ee Ruushka Yemen waa qayb aan laga maarmi karin oo ka mid ah hamiga sii kordhaya ee Kremlin ee dhammaan gobolka Badda Cas. waxaan qaltaaga Moscow jasiiradda Socotra waxa ay la socotaa suurtagalnimo kale oo Ruushku uu ku doonayo in saldhig ciidan oo u gaar ah uu ka samaysto dalka Suudaan. saldhiggan waxa uu Putin kala hadlay madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Hassan al-Bashir sanadkii 2017. tani ma xoojinayso awoodda Ruushka uu ku leeyahay gacanka cadmeed oo kaliya ee waxa ay barbilow u tahay isballaarinta Ruushka ee dhammaan gobolka Badda Cas ayada oo lala kaashanayo dadaalkiisii ku aadan in uu tamar ka dhaliyo qaybta bari ee badda Mediterranean-ka. waxa uu awood u yeelan doonaa in uu si weyn u ballaariyo gacan ku haynta Badda Cas iyo sidoo kale in uu kordhiyo awoodda howlgallada Ruushka ee badweynta Hindiya. howlgallada Ruushka ee biyaha bariga dhexe ayaa dib loo arkay saameyntooda kadib markii Ruushku uu farageliyay colaadda Syria bishii Sebtembar ee sanadkii 2015 markaas oo Putin uu taliska Bashar al-Assad ku garab istaagay dagaalka ka dhanka ah kooxaha ka soo horjeeday isaga. tobannaan ka mid ah maraakiibta dagaalka Ruushka ayaa soo gaaray badda Mediterranean-ka waxayna duqeymo culus ka fuliyeen gudaha Syria. haddii aan eegno xilligii hore Yemen waxa ay ahayd mid ka mid ah mudnaanta ugu weyn ee Moscow ee bariga dhexe intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa laga bilaabo 1962 midowgii Sofiyeeti oo martiqaad ka helay jamhuuriyadda Masar oo taageertay jamhuuriyiinta waxay u soo dirtay Yemen la taliyayaal iyo qalab military. midowgii Sofiyeet joogitaankiisii waxa uu ballaariyay sanadkii 1968 ayada oo markaasi Ruushka uu joogay koonfurta Yemen. Moscow ayaa loo ogolaaday in ay saldhig ciidan ka samaysato jasiiradda Socotra intii lagu jiray muddadaas. 120 maraakiibta dagaalka Sofiyeetka ayaa booqday jasiiradda iyadoo ay ugu wacan tahay helitaanka saldhiggan oo ku yaala afka gacanka cadmeed. Sofiyeetku waxa ay howlgallo joogto ah ka wadeen badweynta Hindiya ilaa 1985. intaas waxaa dheer intii lagu jiray 1968 ilaa 1991 ugu yaraan 5245 khubaro military oo Sofiyeetka ah ayaa ka soo shaqeeyay Yemen. shaki kuma jiro in Kremlinka istiraatiijiyadiisa hadda ee dib u dhiska saameynta Ruushka ee bariga dhexe aan loo tixgelin doonin mid dhammaystiran ayada oo aan Moscow dib u helin saldhigeedii ay ku lahaan jirtay jasiiradda Socotra ee Yemen. safiirka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay ayaa cambaareeyay duqeymaha Mareykanka iyo Britain ay ku hayaan xuutiyiinta Yemen isaga oo ku sifeeyay gardarro cad oo hubeysan. safiirka Ruushka Vasily Nebenzia ayaa iyada oo u tixraacayo duqeymaha uu bilaabay Mareykanka waxa uu yiri labadan dal waxa ay weerar culus ku qaadeen dhulka Yemen. kama hadlayo weerar lagu qaaday koox ku sugan gudaha dalka laakiin waxaan ka hadlayaa weerar lagu soo qaaday shacabka dalka oo dhan. diyaarado maraakiib dagaal iyo gujisyo ayaa sidoo kale loo adeegsaday ayada oo aanu tixraacayno duqeymaha uu bilaabay Mareykanka. inta badan wadamada waaweyn waxa ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin meel u dhow marinka Baabalmandab ee dhaca geeska Afrika waxaana ka mid ah Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska, Turkiga, Ingiriiska, Jabbaan iyo wadamo kale.
isku dayo badan oo ay samaysay Moscow si ay saldhig military uga hesho geeska Afrika ayay ku fashilantay. Yemen waxa ay u muuqataa in ay tahay gobol istiraatiiji ah haddii Moscow ay awood u yeelato in ay hesho saldhigan si ay ugu biirto quwadaha reer galbeedka ee ka agdhow aagan. intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa warbixintan tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doono. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah. halkan waa Itaal Media.